Assalaamu calaykum soo dhawaad saaxiibada ku xiran channelkeena Mawhibo Production. Qofka idin la hadlay waa anigo Cabdisalaana. Muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay sidaad horeyba aad uga barateen sawir qurxin. Maanta sawirkan ayaan qurxinaynaa. Preset-kood diyaarsan waad helaysaa, waxaad ka helaysaa description-ka muuqaalkan. Waa inaad dhammaysataa si aad u hesho password. Preset-ka waxaa ku xiran password. Marka password-kaas si aad u hesho waxaan soo dhigi doonaa 4 lambar buu ka kooban yahay. Geeskaasaan soo dhigi doonaa muuqaalka gudihiisaan kusoo dhex darayaa. Marka si aad password-ka u hesho isku day in aadan muuqaalka dhaafin oo aad dhammaysato. Kadib markaa password-kaaga hesho linkiga ku dhufo, password-ka geli, kadib wuxuu kuu gudbinayaa Telegram channel-keena. Halka ayaad kala soo degi kartaa wixii faahfaahina linkiga preset-ka linkiga ka hooseeya muuqaalka daawo. Waa mahadsantahay. Aan guda galno muuqaalkan maanta. Marka waxaad soo furanaysaa Lightroom ayaan hadda ku jirnaa. Marka waxaan ka bilaabaynaa qaybtan light-ka ayaan ka bilaabaynaa. qaybtan labaad contrast ayaa waxaa ku dareynaa ilaa waxaan geenaynaa ilaa +10 highlight-ka si cirki waxa uu noogu soo muuqdo kalarkiisa minus baan leeyahay 100% minus baan ka dhigayaa. Shadow-gan waa furayaa si meelaha mugdiga ah uu sawirkayga u soo ifo. asna ilaa waxaan ka dhigayaa 48. white-kaasna sidoo kale waan dilayaa. Waxaan rabaa sawirkayga cadaanka waxaas dhan inuu ka baabo minus baan leeyahay 100%. Waxa ay soo haray qaybtan black-gaasna waxaan leeyahay minus si meelaha madowga uu soo muuqdo xoogaa yar baa ka isticmaalaya -10. okay marka inta xigta waxaan sameynayaa qaybtan kalarada ah. kadib qaybtan waxaan sameynayaa qaybtan ay ku qoran tahay tinti ayaa waxaan geenayaa ilaa +12 baan geenayaa. qaybtan labaad price-kan ayadana xoogaa plus baan ku darayaa si uu kalarkeena si fiican ugu soo muuqdo ilaa waxaan geenayaa 18. okay marka waxaan usoo gudbayaa qaybta kalarada dhan ay ku wada jiraan ayaan ku dhufanayaa. kadib waxaan sameynayaa qaybtan koowaad casaanka ah. qaybtan koowaad uma baahnin, qaybtan labaad aan ka bilaabayaa. qaybtan saturation-ka xoogaa waa soo muujinayaa, waa wejigu qaybtan quseeya ilaa waxaan ka dhigayaa 14. qaybtan labaadna ilaa waxaan ka dhigayaa 27 meelahaas baan ka dhigayaa. qaybta minus baan ka rabay, minus baan u celinayaa. minus waxaan leeyahay waxaad iga dhigtaa -14 oo okay way. marka waxaan sameynayaa kadib qaybta saddexaad ayaan u gudbayaa. qaybta saddexaad qaybta hue-ga cagaarka dhinaca cagaarka u badanaya 100% baan leeyahay ig plus iga dhig. qaybtan dhexe saturation-kana waxaan leeyahay minus baan ka dhigayaa. minus waxaan geenayaa -20. qaybtan luminance-gana uma baahnin. kadib waxaan sameynayaa qaybta cagaarka caadiga ah. qaybtan cagaarka caadiga waxaan sameynayaa iyadana hue-ga uma baahnin. marka saturation-ka ayaan xoogaa waxaan leeyahay waxyar dib u celinayaa. minus waxaan ka dhigayaa saturation-ka -12. okay cagaarka waxaan rabaa inuu si fiican usoo muuqdo inkastoo cagaarka side-ku uusan sawir kusoo baxayn bal adii ilaa 20 baa geenayaa. okay kadib qaybtan xigta luminance-ga ifka cagaarka si uu u yaraado xoogaa minus baan leeyahay. minus waxaan ka dhigayaa adiga ilaa 15. okay kadib waxaan usoo gudbayaa qaybtan waxaan sameynayaa hue-ga plus baan leeyahay 100% dhinaca buluuga keenayaa si uu buluuga ugu soo muuqdo. kadib qaybtan saturation-kana wax yar baan ku darayaa ilaa 6. okay waxbada uma baahni. kadib qaybtan buluuga ayadana waxaan sameynayaa hue-ga waxaan geenayaa dhinacan buluuga xoogaa biyaha ah baan ka dhigayaa ilaa waxaan ka dhigayaa ilaa -12. saturation-kana xoogaa ku darayaa si uu xoogaa buluuga usoo muuqdo ilaa waxaan ka dhigayaa adiga 20 ilaa 23. okay luminance-gana xoogaa ifku usoo muuqdo waxaan ka dhigayaa ilaa 14. okay kadib qaybta xigta waxaan sameynayaa saturation kaliya ayaan waxaan leeyahay minus. qaybtan ayadana sidoo kale saturation minus si uu kalarkan sawirkayga hadda kalar u dhow waxaa ka jira casaanka. marka kalarada wuxuu kugu soo darayaa xoogaa sawirku ka ahlanaya. marka minus na iska tiraadid waa kalarkan baa kuu soo baxay wey. marka dhan baan leeyahay waa ka soo baxaya. kadib waxaan usoo gudbayaa maxay ahayd qaybtan effect-ga
effectigan imaanaya. Marka waxaan sameynayaa qaybtan clarity ayaa xoogaa ku darayaa plus waxaan leeyahay 6 si sawirkayga xoogaa si fiican u soo muuqdo. qaybtan dayskana xoogaa madow wuu soo saarayaa, isna waxaan geenayaa ilaa 12. kadib qaybtan vignette-ka geesaha mugdi uu sawirkayga uu ku soo daro ilaa waxaan geenayaa maxay ahayd ilaa 30 ilaa 38 baan ka dhigayaa. qaybtan mid bounty-gana isna waxaan ka dhigayaa ilaa 31. qaybtan waa madowga dhexe weeye, si madowga dhexe uu sawirkeena ugu yeelo ilaa waxaan ka dhigayaa uma badinayo, xoogaa yar baan ka isticmaalayaa ilaa 32 xitaa waa okay. qaybtan fatherkan waa furayaa si labadii madow hadda madowga geesaha iyo kii dhexe ay isku qabsadaan. saa marka tiraahdo waa arkaa si labadii madow ay isku qabsadaan waa furayaa. qaybtanna sidoo kale okay. marka waxaa ii haray kaliya qaybtan maxay ahayd detailiga kaliya ii haray. marka waxaan sameynayaa sharpinka xoogaa aan furayaa ilaa waxaan ka dhigayaa inta hadda u dayaxta waa okay. waxaan leeyahay plus 12 igu daa. noise reduction-kan asna wax yar baan isticmaalayaa aan badnayn ilaa iyo 15 si sawirkayga shucaaca iyo waxa uu aaga saaro. color noise reduction-kan asna waxaan isticmaalayaa intii oo kale ilaa 15 asna inta iga badan. okay. marka sawirkana intaas uu ku dhan yahay. haddaan isla eegna markii hore sawirkana sidaas uu ahaa, kadibna waxaan u bedelnay sidan. runtii kalarkan haddaad la degtid uu sawirkaaga sidii la rabo ku noqon waayo, waxaad wax ka bedeli kartaa meelaha stepkan soo marnay baad adiga xoogaa isku habeynaysaa. sawirkaaga meesha kusoo baxay adaa garanay. waa mahadsantihiin. muuqaalkan intaan idinku ogyahay. fadlan haddaad ilaa xaggaa soo gaarto waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto, channelka subscribe saarto. aad baad u mahadsantihiin. waa anigoo Cabdisalaana, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.